Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa xogsida media ee ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo hadalhaynta bulshada. Fadlan hadday tahay markii koobaad aad soo boqoto kanalkan, ha ilaabin inaad subscribe garayso gambaleelkana aad furato si ay kuu soo gaaraan xogta maalinlaha ah ee halkan aan ka soo gudbino. Kuna soo dhawaad muuqaalkeena maanta. Bismillaahi raxmaani raxiim. Wararka aan maanta inahayna waxaa ka mid ah wakiilka gaarka ah xogayaha qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa bogaadiyay horumarka laga sameeyay hanaanka doorashada Soomaaliya tan iyo markii la saxiixay heshiiskii hirgelinta doorashada ee Soomaaliya. James Swan oo khamiistii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ugu warbixiyay hanaanka doorashada Soomaaliya wuxuu sheegay in wixii ka dambeeyay heshiiskii 27 May ra'iisul wasaare Roble uu muujiyay hogaamin wanaagsan iyo hindisid ku aadan in geedi socodka hore la dhaqaajiyo isagoo kulamo joogto ah la yeelanayo hoggaanka dowlad goboleedyada Soomaaliya. waxaa jiray cadaadis soo tarayay oo lagu hayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii doorashadii loo qorsheeyay inay dhacdo 8 February ay baaqatay maadaama la isku afgaran waayay sida codka loo qaadayo. laba dowlad goboleed ayaa xilligaas sheegay inaysan doorashada ka qayb gali doonin. wadahadal dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada u soo bilowday bishii Maaj ayaa fashil ku soo dhamaaday horaantii bishii Abriil. madaxweynaha federaalka aqalka hoose ee baarlamaanka wuxuu ku codsaday inay meel mariyaan sharci gaar ah oo galanaya in muddo kordhin 2 sano lagu sameeyo isla markaana lagu heshiiyo 17 September 2020 iyadoo heshiiskaas uu ahaa doorashada dadban ee loo bedelay doorasho qof iyo cod ah. go'aanka aqalka hoose waxaa ka dhalatay mucaarado xoogan oo sabay in ciidamo iyo maleeshiyaad muddo kordhinta diidan iyo ciidamada dowladda ka socda ay halkaasi iska hor imaad ku sameeyeen isla markaasna ee rabsho halkaas ka dhacday. Mr. Swan wuxuu golaha u sheegay kadib muddo dheer oo hubanti la'aan ay soo taagnaayeen xiisada sii xoogaysanaya ugu dambeyn doorashooyinka Soomaaliya ee muddo dheer la sugayay ee hadda hore u dhaqaaqday inkastoo ay kadib dhacday xilligii loo qoondeeyay. xaqiijinta hanaanka doorashada oo ku socdo geedi socodka loo dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo wuxuu u baahnaan doonaa dadaal joogto ah in ay sameeyaan dhinacyada ay khusayso gaar ahaan dhinacyada saxiixa heshiiskii 27 May ayuu yiri. Swan wuxuu intaa ku daray in guddiga doorashada federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada la dhisay 4 dowlad goboleedna ay ka bilaabatay doorashada xubnaha aqalka sare. gobolka Gedo sidii doorashada uga dhici lahaydna waxaa socda wada hadallo ku saabsan arrintaasi iyadoo oo ra'iisul wasaare Roble oo magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka ee gobolkaas. doorashada Soomaaliya oo la filay in 30% in haweenka qoonda ahaan loo siiyo. wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay wuxuu sheegay inuu walaac ka qabo qoondada haweenka aan sidii la rabay u meel marin haddii aan la qaadin tallaabo adag oo la taaban karo. Danjire Francesco oo ah wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya oo fariin ku saabsan midowga Afrika golaha u soo jeediyay wuxuu yiri waxaa weli naga go'an inaan gacan ka geysano xoojinta awoodaha hay'adaha amniga ee Soomaaliya taasoo aan u aragno habka kaliya ee Soomaaliya ay si joogto ah ula wareegi karto amniga dalkeeda. dhawaan waxaa xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa la galay heshiis lagu xaqiijinayo in deeq bixiyaasha iyo wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobay ay Soomaaliya ku deeqaan dhaqaalihii doorashada lagu fulin lahaa si guddiga doorashooyinka oo u noqdo mid si adag howlihii loo xil saaray ay uga soo dhalaalaan. ugu dambeyntii James Swan hoosta ka xariiqay in la siiyo dadaalada wax looga qabanayo xaaladda bini'aadamnimo ee murugsan ee Soomaaliya oo ka dhalatay saameynta isbedelada cimilada gaar ahaan abaaraha iyo fatahaadada iyadoo ay taagan tahay halista joogtada ah ee ka imaanaysa kooxda Al-Shabaab. Hada warbixintan maanta ku talagalay halkan ayay ku eg tahay wixii kala war oo siyaasadda ka soo gudbanaadana halkan ayaan kula wadaagi doonaa insha Allah.